السلام عليكم جايز soo dhawaada waa Ahmed Ibrahim insha Allah vlogkii koowaad markaas sharax ku dhex khasdana vlogan weekly recap waxaan joogaa trading office-kayga meeshaas waxay saaran kitaabka Quraanka oo markaas aan akhrisanahay haddii aad tahay qof muslim ah waxa laga baahan yahay waxyaabo badan inaad samaysid ilaahay camalka haddii uu hayraado like subaxda qorayna bilsid sadaqeyrna baxsatid lawarka sunnah inaad kutid salaad inaad kutid like waxyaabaha yaryarka ee subaxda la sameeyo waxyaabaha keeni kara successful inaad noqotid adduun iyo aakhiraba insha Allah isla socod wanaagsan stay tuned. guys waa soo baxnay hadda wadada saaranahay qaax meeshaan ataga insha Allah waxa fiirdoona breakdown ka isbuucan isoo kale fursadaha suuq soo baxay isoo kale FTMO account-kayga sida uu sameeyay 5.5% and basically suuqa isbuucaadi aad u qurux badan shidan just clear alla dulqaad yar ayuu u baahnaa marka intana waa sameeynay soo waana helnay wixii markaas awaal marin aan suuq ku leeyahay so haddii aad trader tahay ama aad rabtid inaad forex bilaawid shaqada lagaaga baahan yahay hal mid waa mar walba ku celceliya shaqada lagaaga baahan yahay waxa waa in aad dulqaad leedahay daslada ani meeshan lacag soo galay degdeg ah lacag inaan ku sameeyo then my brother suuqa algorithm-kiisa soo shaqeeya suuqa wuxuu awaal mariyaa qofkii dulqaad leh marka waa kaas guys wadadana arkaysiin hadda ka hor waxaa jirta yar صاحبنا أنا أسوق هذا أنا تكسيلة أو بولت درايفر مركا شركة شيء وصل على ساعة كودي رجلي so هذا نواكاس وحاول جارين وعس أو سباقة أسواق تاني كل الناس شيء مرة محا شركة أسوق هاتوم basically وده أنا مرة يوصل على مدة كلا وده والبو مرة مركا تكسيلة أما إيش أو هذا مرة مركا يعني تكسيلة أو دوين كأمر رجلي مرة البحر يوصل على إن تسوين كاس عن كشركة صابته waxaa qisooyin yani dadka inta badan anfaca oo noloshooda ay kasii bedelan karaan marka kaliya haddii aad aamintid waxa sameynaysid waxa warkaas aaminaysid muhiimad kuma aha because waxa og tahay biri meesha gaari doonto dadka badan waxay qiimeeyaan xaaladda markaas maraya taasaan dhibaato badan keentay laakiin taas waa kugu qalad gaari hortooda ma socdo taas waa kugu qalad laakiin haddii markaas insha Allah oo fikirkaada ka dhigtid mustaqbalka hadii doono maxaa qaban karaa hadii saan asmalooj saan isku gal kartaa of course xaaladda hadda aad ku jirtid oo ii sheeg struggling ah ama dhibaatada waa ka bixi kartaa marka shaqadaas waxa kugu soo qaatay in aad aamintid wax walba ama xaalad walba markaas aad ku jirtid So basically guys waan nimaanay waxyar aan inta doona okay baagtida xaq ii taalo speak no great so baawrkan nalkan saageer kartid like made forex arkarta imid kala made for so basically nalkaas waxa ku spend garay $1600 in lagu qoro loogada soo kalena projectaha in laga bedelo habeenkii waxa jeclaa in ومن قاركود سفراء هذا so null fog like 200 meters 250 300 meters null افتيما إن ليسار لكن فكر كاس كورن كلها فكر في عن كون اللي حكوا بالضبط stranded in the open dried out tears of sorrow lacking all emotion staring down
marka khayray haddana cuntaa dalbade marka kastoo waxay isaga wax soo taabta haddana inta marka laptopku iga dansan yahay wax waa idin sharxi lahaa laakiin inta laptopku daaranayo si caadi ah ayaa markaas idinla sii hadlaa waxaa rabaa inaa ku sheego hal mid last week iyo weegan hadda maxay ku kala duwan yihiin isbuuca weegi hore iyo weegan hadda maxay kala duwan isbuuca hore hal trade helnay oo 20 biba isbuucan waxaa helnay dhowr trade oo ii sheeg saddex trade helnay min 30 bib ah that's 9 bib so sometimes waxaa laga dad badan isku khaldayaan kale the amount of people kale suuqa uma baahnid in profitable aad noqotid in pips badan aad qabsid laakiin sida saxda ah suuqa waxaa u baahan tahay in ay heshid maxaa la yiraahdaa percentage risk in wax ka fiirisid akoonkaaga boqolkiiba meeqa ku ziyaadi kartaa waana wax ugu muhiimsan oo qofka traderka lagu baahan yahay laakiin pip waxaas waa la iskaga soo tagay hadda maxaa la dadka traderska ah way fahmeen shaxda in aysan pip ahayn laakiin ay tahay percentage jirtaan because ganacsi markaas sameynaysid inta customer ku imaanayso muhiimad maaha waxa muhiimad ah dhaqaalihii aa meesha gelisay maxaa lacag ahaan kaaga soo baxay waana sababta trading eedan saas inaa u fiirsan rabaa dhaqaalaha meesha aa gelisay maxaa lacag kaaga soo baxay pipka waxaa dhihi karaa hal mar ayuu muhiim yahay oo ah in markaas sameynaysid risk to reward ratio oo macnaheedu yahay intaa risk gelinaysid laba jibaar meeqa heli kartaa intaas like intaas kaliya waxaa dhihi karaa pipska intaas ayuu muhiim yahay laakiin wixii ka soo haro I don't think pipska in uu muhiim ka yahay marka taas iyadana ku baraarug laakiin meesha ana iska leh waxa waa faraxsanaa mid baan dried out tears of sorrow suuqa way adkeed in lacag sameeyno sababtoo ah tariffska inta badan jiro isbuucan waxaa aragnay in tariffska xogaa development oo kiima dhanka Donald Trump in ay heshiiyeen wadamada China taasoo keentay suuqa in uu helo positive risk sentiment taasoo soo kale keentay in lacagta ay ku soo laabto dollarka because marka hore daa ogtahay lacagta dollarka ka bixaysa sababta keenaysana waxay ahayd in la expect gareenayo in tariffska uu keeni doono ama canshuur kordhinta in uu keeni doonto Mareykanka dhibaato dhaqaaladeed laakiin hadda maadaama la wixii waa heshiin wala hadlaa waxay keenaysaa lacagta markaas dollarka ku salaamanayso lacagaha dollarka la socdana awood markaas inay yeeshaan inaa fahamtid suuqa qaabka u socdo waliba xagga sentimentka waa wax aad iyo aad muhiim u ah so inta meelaha wareega cuntada waa la keenay bal aan aragno waxa la keenay bal alaabtan aad tijaabin waa waffles iyo chicken waaye marka iyo cabitaan matcha biryan Nairobi waxa ku maqlay matcha waxaan ka arkay hi Ashraf so tijaabin bal matchada Ashraf aan TikTok oo nagu wareesh guys asla fiirin shaashada breakdown asmeyn doona insha Allah position aa qaatay oo ay kamid ahayd AUD USD iyo sidoo kale NZD USD so basically trade-ka AUD USD waxaan ku sameeyay account waxaan ku shubay lacag yar $70 profit aan ka sameeyay geeska aftertay sidoo kale NZD USD idana teamka ayaan la qaatay oo markaas idana profit ayuu markaas ahay insha Allah shashadaas la eegno trade-ka aan account lacagta ku shubay trade-kan ayuu ahay oo markaas suuqa soo daatay waxaan markaa inaan ku sheego oo ah marka account yar flip gareynaysid waxa u baahan tahay horta in ay shid entry fiican trade-ka markaa qaadanaya entry halkaas ayuu ahaa so basically entry intaas markaa ka dhigtay waxaan isticmaalay lot size yani account markaas unlimited yahay trade-ka markaa galanay suuqa si wuxuu u daatay straight meltdown ayuu markaa suuqaas u daatay marka haddii aad in account flip gareysid waxaa qaadanaysaa account-ka linkiga hoos saaran FX Pro unlimited waa waxaa furanaysaa account leverage unlimited ka dhiganaysaa means haddii aad $20 account ku shubtid ama $10 account ku shubtid stop loss ka wuxuu noqonayaa account-kaas oo dhan basically I don't think qof $10 forex aan ka maarmeynin in markaas oo forex trading ka bilaabo waxaa u baahan tahay in maxaa la yiraahdaa aad riski u bareeri kartid $10 ama $20 haddii laakiin riski aadan u bareeri karin basically way adagta so taas waa account flipska trade-kan kale asla qaadanay asla fiirino asina wuxuu ahaa NZD USD waxaan ka soo qaatay from the highs soo kale TP-ga wuxuu ahaa levelkan hoose sababtoo ah meeshan waxaa yaalay orders badan oo stop loss ayaa meeshaas yaalaan I mean orders badan oo bias ayaa meeshaas yaalaan waana sababta suuq markuu meesha amaad u react garay suuq kor u daaday kadib soo daatay meeshan waxaa ka raadinaya eedana entry kale oo ah NZD USD da entry kale sell kale laakiin ima suurtagelin sidoo kalena meeshaas markii la maraayo waa u diray teamka dadka qaar ayaa waxay qaateen AUD USD oo eeda entry
close markaas bixisa laakiin shaashadan muhiimada aad ku tusinayo waxay tahay laba shay okay mid horta waxaa ku tusinaya in hal trade isbuuci haddaa heshid qurux badan in suuqa markaas aad ka maalmi kartid in maanta inaad ku dhex jirtid mid labaad aad ku tusinayo waxay tahay haddii aad rabtid inaad conflict gelisid tradekan oo kale haddaa fiirisid suuqa meesha ugu sareysa laga soo qaaday so basically suuqa drawdown xataa ma aadin seelka meeshaas bilaw ilaa ay suuqa seel hoose ay ku socday just laba candle oo buy ay soo dhex gashay qaacidada marka waxa keenaya horta trade sales waxa sanaa qaato waa fundamental laakiin waxa assume gareynaya ama sawirnaa in ay haystid trading style adiga ku gooni ah tala markaas aad kugu darsanayo oo ah haddii aad ku wareersan tahay in aad lacag samaysid haddii akoon yar lacag ku shubtid lacagtaas $10 $20 haddii akoon ku shubtid waxaa samayn kartaa oo kale lacagta ku shubtid halfkeeda risk gareyn kartaa okay ama $10 kulli aad risk gareyn kartaa si markaas aad weyso $30 ama $40 haddii markaas trade qurux badan ay setup yahay so waxaa samayn kartaa basically $30 aad soo qaadanaysaa I mean $30 oo saddex jeer aad soo qaadanaysaa $10 kooda ku bilaabtaa haddii kaas aad gubtid $10 labaad ayaa markaa hadan ku celinaysaa oo kaas hadan ku trade gareynaysaa kaas haddii kaa gubto haddana 10 kale ayaa hadan mar kale gelinaysaa oo kaas ayaa ku trade gareynaysaa so 10kaas markaa ku trade gareysid I'm sure haddii saddex trade oo ay setup haddii aad qaadatid in mid ka mid ah markaas aad ku guuleysanaysid kasoo qaad tusaale oo kale trade-kooda ku dhacday trade-kooda ku guuleysatay so trade-kooda haddii aad ku guuleysatay waxay ka dhigan tahay in already akoonkaaga $30 ama $40 faa'iiday ku saaran tahay so trade-ka qaadatay $40 $20 ama ka risgareysay then compounding ay sameynaysaa waxaa laga yaabaa trade sax inaad ku guuleysto akoonka markaas $100 maraa maxaa sameynaysaa kadib akoon lacag ayaa soo bixaysa waxaa gadanaysaa account challenge sida shirkadaha FundNext oo kale ama FTMO shirkadaha trading laga gato then shirkadahaas markaa gadatid kuwaas ayaa markaas ku trade gareynaysaa kadib si toos ah kuwaas ayaa markaas maxaa la dhahaa akoomadaas risk management isticmaalaysaa haddii aad withdrawal 5% 3% ka samaysidna lacagtan aad soo qaadan ayaa haddana account weyn markaas ku qaadan kartaa marka muhiimadda dhan muuqaalka u duubay labadaas shay ayaa markaas ahayd haddii markaas systemkii aad isticmaalaysid oo ah in suuq meelaha reversal ka dhaca aad raadisid waa kaas trade markaa soo qaadatay waxaa ku gali kartaa haddii $10 aad risgareynaysid $10 dhan aad risgareyn kartaa adoo 0.1 isticmaalaysid meeshan $60 aad ka helaysaa then trade labaad meeshan dhalinyarta ka qaateen oo ah AUD haddana waxaa risgareyn maadaama $70 aad haystay $10 ilaa $60 $70kaas waxaa risgareyn kartaa $40 si markaas aad u samaysid haddana another 80 or 120 so akoonkaada wuxuu tagaa almost $150 $160 kadib waxaa gadan kartaa account 15k account 10k ah kadib xagga ay compounding samayn kartaa kan brokerkana sidaas aad markaas ku wadi kartaa haddii aad is leedahay maxaa isticmaali karaa brokerka isticmaali karaa yani ahaan waxaa isticmaala FX Pro Unlimited ah videogan broker ma sponsor gareynin wax shaqo broker maanta ku leeyahay ma lahan laakiin su'aal ugu badan waa maxamed broker ka isticmaashay dad laga yaabo negative fikra inay dhahay maxamed broker oo la shaqaysta waxaas promote garaan no xaraan iga tahay brokerkaas arrintaas inaa uma sameyn inaa broker ku promote garay laakiin waxa u sameyn in dhalinyarta aad ku tuso in haddii xitaa account yar aad haystid ama lacagtaada yarta still in faa'iido trading aad samayn kartid as long as rules-ka aad raacaysid markaas trade setup-ka aad trade insha Allah markaas waa vlog aan isla sameynayna maanta waa kugu tusinaya qaabka markaas compounding u samayn kartid sidoo kale maalin yar soo baxay insha Allah muuqaal badan noocan ah haddii aad u bogtaan comment igu soo sheega waa soo duubin doonaa ayagoo badan muuqaalkan halkaas way ku egyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala